ugaasal Carab Yuusuf waxa tahay ugaas Soomaaliyeed waxaad ku sugneed gudaha hotelka Dayax bal ka waran sida waxa u dhaceen iyo waxaad aragtay bismillaahir rahmaanir rahiim assalatu wassalamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam anigu saaka markii aan soo toosay 2 saac iyo 20 daqiiqo ahayd markaan soo dhaadhacay qolka quraacdan galay intaan quraacday aniga iyo Sheekh Maxamed Fadli oo intaan quraacnay saa u soo kacnay ayaa holac iyo jiingada iswata iyo dhagaxyaan baa naga hor yimid halkaas iyo gacantana 2 meelood ah ayay wax iga gaadheen kadib wayna dardartay wixii dib baan u noqonay qolka kushiinka u dhow ee dhinaca suuliyaasha lagu weysaysta ayaan galnay hoostaan ka soo xidhanay halkaasaan ku jiray wixii qarax iyo dagaalkii iyo higtii iyo hirtii yeedhaysay halkaasaan ku jiray khayr Allah ka siiyo ama khayr Allah siiyo walaashay ama inaan adeeruhay Jawaahir Baarqabaan la hadlay waxaan ku jiraa qolka hoose hadii wax gurmada la sameyn karo halka hana lagu soo gurmado marka dadaal fiican bay sameysay ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo kuwa militariga iyadoo hogaaminaysa ayay qolkii noogu soo galeen ilaahayna uu naga samata bixiyay de intii qarax iyo dhibkii iyo dagaalkii aad aragtayna guryahaas iyo guryaha u dhow baabiyay halka baan ku jiray nimo ilaahay nabadgeliyana de cidima wax yeeli karto qaranka Soomaaliyeedna waxaan qiyaasayaa inuusan intaas dib ugu noqon doonin oo uu ka sii socon doono halka uu joogay ummadda Soomaaliyeedna inuu ilaahay boggeeda isku soo dumo iyo qalbigeeda oo ay dareemaan wadaniyada iyo nabadgeliyada iyo dalku wuxuu yahay waayo ragoogashi waa amni baa la yiri meel hadii amni aan lahaynin dhibaato weyn bay leedahay dalkan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay dadkiisi isku soo dumo qalbigooda oo nabadgeliyo taama siiyo oo horumar kan hadda inoo muuqda oo bildhaamaya la sii hormariyo ee aan dib loogu celin marka waxa dhaceen xaaladda sida ahayd sawir naga sii wallahi arday kuwii kushiinka naga siiyay quraacda iyo annagii isku hal mar baa qaraxuna qabsaday hadda cirkii iyo wixii aad arkaysay nalkii hal mar buu damay mugdi baan noqonay wixii bus iyo wixii nagu soo daatay ma qiyaasi karo anigu ma qiyaasi karo qarax kadib meesha rasaas ka dhacday bal ka waran rasaas la isdiyaarsanay rasaastu aad bay u socotay iyadoo yar iyadoo roron iyadoo iyo waaweyn iyo bombooyin qarax fara badan baa ka dhacay meesha alxamdulilaahi rabbil caalamiin falillahi alxamdu aniga halkaas oo aad u jeeday gacanta ah oo halkaas iyo halkaas waxoogaa firdha iga galeen iyo intaas yaa isoo gaadhay intaan dareensanahay marka dad aad istaqaanin oo meesha ku jiray oo wax gaaray ma soo wiil aan u maleeyay kii Ali Haydar ninkii cuntada dadka siisinayay isaga iyo uuradii oo wada socda igu dambeysay inuu badbaaday inuu dhintay ma garan karo anigu waata marka dablida meesha soo waratay gudaha hotelka qolalka miyay u gudbeen mise meesha ay ku koobnaayeen anigu sida aan qiyaasayo waaxda badda dhinaca badda kuwii ka soo weeray hotelka wax inay kor fuuleen amal oo kale ila ahayd in kasto oonan arag oo qaraxyadii iyo rasaastii gudaha ka dhacaysay qolalka korkeen ah inay wax u gudbeen fikir ah yaan qaba khasaaro aragtay ma jiraan wax khasaaro oo arkay burburkii iyo hantidii oo de aad macnaha meeshii ku burburtay waxaan ahayn waxaan hadda hebel oo dhimasho aan isdul taagay aan ma arag u shaydan meesha aan fadhiyaan ku haysay cimaamadan kaliya tuu qarax uga riday cimaamadan waxaan u maleynayaa marka soo gashay hal qof oo idinka idin la socday baa kor igu soo qaaday marka intaas halkaasaan ku jiray hotelka anigu de kolley Soomaali badan baa degan oo aad u fara badan oo de hotel iska nabadgeliya oo lacagteena aan ku degannahay ma fahmi karo anigu ninkii hotelka lahaa inuu degan yahay labadii wiil walaalaha ilmaadeerka ay hotelka lahaa iyo annagii inaan degannahay waan ogahay laakiin wax mas'uuliyiin dawladeed ah oo garanayo meesha degan oo hebel iyo hebel dhihi karo ma garanayo maadaama aan deegaanka ku cusubahay ma garan karo anigu wax mas'uul dawladeed oo meesha degan waata ficilkaasi kooxdii sameysay maxay kula muuqdaan kolley waxaan ku qiyaasi karo ma leh wax fool xun oo aan loo baahnayn oo jariimo ah oo in lagu sameeyana ay xaraan tahay baan u arkaa هذا ما استوى